بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدي دلحانتي بميل كستا ساعد كستا يوقت كستا واد كسوغنتين با كسو دوادا برنامج كارا برنامج كينا ياسي قطر ديرغولا فقوري دونا طويلها سياسة iyo isbedelada ka curtay mandaqada Geeska Afrika Geeska Afrika oo muddooyin badan la daaladhacayay colaado saboolnimo iyo hogaamiyeyaal raagay kuwaasi oo caqabad ku ahaa hanaanka horumarka nabadda iyo hirgalka hayaanka dimuqraadiyadda iyo ganacsiga xorta ah haddaba barnaamijkeennan waxaa ila lafaguri doona Maxamed Haruun Biixi oo isagu ah falanqeeye qoraa aqoon-yahan ah oo ku xeel dheer arrimaha diblomaasiyadeed ee Geeska Afrika iyo caalamka haddii aan wax idinka sheego shakhsiyadda Maxamed Haruun Biixi waa xeel dheere dhinaca arrimaha siyaasadda iyo isdhexgalka Geeska Afrika waxa uu wax ku bartay waddanka Ingiriiska isagoo shahaadadiisii koowaad ku qaatay culumta cilaaqaadka caalamiga ah ee jaamacadda Derby waxa uu shahaadadiisii labaadna uu ku qaatay siyaasadda arrimaha bulshada ee jaamacadda Leeds intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2016 Maxamed Haruun Biixi ayaan waxaan ka wareysan doonaa arrimaha ka soo cusboonaaday Geeska Afrika iyo isbedelada ka socda doorka Soomaalida ay ku leedahay isbedelada Afrika halkee ayay u jihaysan tahay mandaqada Geeska Afrika maxay ahaayeen filashooyinkii iyo natiijooyinkii laga qabay isbedelada ka socda Geeska Afrika waddamadii saaqday ee gobolka oo tala cusub ay ka soo muuqatay ayaa jirta meeshii wixii maartay la oran jiray dabkii baxaya dab lagu qabsadaa baana ku dhagowday oo mar haddii ay rajo ka soo muuqatay oo isbedel uu ka jiro Ethiopia waxa ka dhacay isbedel weyn oo aan la filayn in all accounts marka si kastaba dhinac kastaba laga eego isbedel weyn oo aan la filayn oo caalamkuna aanu filayn dadka Ethiopiana aanay filaynin ba ayaa ka dhacay inta badanna dadku waxay sheegaan in xuduud la isku hayay laakiin runtu waxay tahay in ay xuduud arrinta ay ka fog tahay iskhilaaf shakhsi ah oo iyo isdiida shakhsi ah oo afwarqi iyo ninkii dhintay Sanaawi u dhaxaysay iyo maartay kibir ayuunba dagaalkaas lagu hoobtay keenay ma la filan karaa dalalka qaar in ay ligan ku noqoto oo aanay ka faa'iideysan arrimaha ka socda Geeska Afrika qaarse gorobka ma u buuxsamaya oo ma ka faa'iideysanaya isbedelkaasi waa laga yaabaa wadamada qaarkood inaanay ka faa'iidin isbedelkaas soconaya ama wadamada qaarkood ay ka faa'iidaan in ka badan kuwa kale intii ka faa'iideen ay ka faa'iidaan dabcan kuwa ka faa'iidaya inta ugu badan ka faa'iidayaan imtixaankaasna yahay kii political reformka ama dib u habeyntii siyaasadda waxaanu ku murmursoonayay intii hore Ethiopia inuu haynaa dagaal wadan weyn oo inaga xoog weyn been is haynaa marka ay ciidiga daba hadlin dadkuna askarta hays wada qoro dhimashaha loo wada diyaar garoobo dood noocaas uu haystay waa su'aal la isweydiin karo Djibouti iyo Eritrea meelihii kale horumar baa laga samaynayaa arrintoodii maxaa ku dhacay khilaafaad cusub isee ma ka abuurmi karaa oo gobolka qasar ma ka bilaabmi karaa Maxamudow ana waxaan isleeyahay taas ma jirto qorshe ay ku wado oo dawladda Soomaaliya dejisay oo ay leedahay maatay Hargeysa saa ku yaal oo strategy uga qoran oo uga meel yaala ma jiro laakiin arrinta la tilmaamayo waxa weeyaan dawladdu heshiiskii qaatayna may furin gobolka waxaan ka socdana qorshe uga meel yaalo muuqda ma jiro yes oo ku raacsan labadaba sidee bay u maareyn kartaa su'aashu weeyaan waa runtaada waa su'aashaada hore ku jirtay arrinta ku saabsan saami qaybsiga iyo isdiidada beelaha Soomaaliland dhexdooda taala iyo arrinta qaatimo waxba dawladdu kamay qaban anigu waxaan qabaa inaan arrinta cid u socota aanay jirin maamulka Muuse ee hadda jooga inay arrinta u socdaan ama ay dan yahay la kala leeyihiin u malayn maayo siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland ma is oran kartaa
waxaa saameyn taban ku yeelatay doorashooyinkii lasoo dhaafay ee ka dhacay waddanka. may saa ma qabo. siyaasaddii arrimaha dibadda waxaa fadhiidiyey doorashadii dood meelo badan aan ku maqlay, laakiin anigu ma qabo. talabaad ee khaladka weyn ah aan anigu arkaa waxa weeyaan maalmo dhaweyta waxaan maqlay iyadoo la leeyay meeshii waa la xidhay arrimaha dibadda mar haddii faratoon loo magacaabay. khalad aad iyo aad u weyn weeyaan hadalkaas. faratoon waxa uu muxuu qaban jiray kuwii ka horreeyay maxay qaban jireen? muxuu qaban jiray sacad, muxuu qaban jiray maxamed cabdilaahi, muxuu qaban jiray hebel kaa doonto soo qaad. maxay qabteen 22 sano intaasaa isbedeshay hal wax oo ay qabteen mid garanaysa.